muddo 4 bilood oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 52 iyo guutada 5aad ay ku jireen howlgallo iyagoo ka jawaabayo amarkii madaxweynaha qaranka oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida fulinayana awaamirtii ka soo baxday howlgallo badanna sameeyay muddo 4 bilood oo shaqeynayay waxay ka gaareen guulo aad iyo aad muhiim u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladdeena iyo shacabkeenaba alxamdulillah ilaahana ma hadda iskale guushaasna maxaan ku raadaa makaniyay ciidamada qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 52 iyo guutada 5aad ee qaybta 27aad hawshaas oo hawl aad u badan ahayd muddo 4 bilood ah welina uu socdo howlgalladaasi ay socon doonaan insha Allah wadayna mar walbana waa ka jawaabaynaa waa amaamirta madaxdeena qaranka ay nasiiso haddaan dib ugu noqono dagaalkii ka dhacay kowdii bisha magaalada Moqokori ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka gaareen guulo badan muddo 23 maalmoodana waxay deganayeen Moqokori oo ay hadda xaalad dagaal iyo maxaan ku iraadaa ay uga soo baxeen alqaacidada nimanka argagixisadaana jab weyn ayaa ku gaaray halkaas guul weynna waa laga gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna wuxuu aqoonsaday awoodda uu Ilaahay siiyay iyo inuu maxaan ku iraadaa degi karo goob walba oo cadawgu degan yahayna ka ceyrin karo degina karo joogina karo waxa kamid ah Moqokori waxa kamid ah Meercadde waxa kamid ah maxaan ku iraadaa meesha la yiraahdo Soomaan waxa kamid ah Faridood waxa kamid ah ilaa deegaanadaas oo dhan gacanta lagu hayaa ilaa Mubax wax dhibo hadda ka jiraana ma jiraan cadawgu meelaha soo galgalaaho waa soo meermeereysta waa dhuudhunta miino oo dhiga iyo kooxa meelaha laga soo aruursho markay 400 iyo 300 oo la suuqa keeno gobolada 18 gobol laga keenay markuu meelaha keeno meelo weerweera wax dhibaha anaga nooguma fadhida taas goob walba oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed joogay waa joogya oo maasantahay Moqokori alqaacidada waxa looga dilay 74 nin maxaan ku iraadaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa halkaas uga shahiiday 8 askari alxamdulillah aadaan maxaan ku iraadaa Ilaahay ugu mahad celinayna waa la wadi doonaa waana socdaan waana la wadi doonaa insha Allah shalay ugu dambeysay oo howlgallo badan aan ka sameynay deegaano ay maxaan ku iraadaa ku soo dhuudhuunteen miinooyin inay dhigaan iyo shalay miinadii qaraxdo kale wax dhiba anaga uma aragno waxaan ku sheegaa inaan taageerno dawladdeena anaga mar walba qasabay nagu tahay cid walba oo maxaan ku iraadaa anaga inayna hakiso isku daydana ma hakanayna haduu Ilaahay raaco waa maasantahay waxa laga gaaray guulaha laga gaaray waxa weeye koow ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in ay cadawga weerari karaan difaacna xiran karaan joogina karaan difaacyadooda labo in cadawga la naafeeyay oo laga laayay maxaan ku iraadaa alqaacida badan oo maxaan ku iraadaa ay meelaha ka soo kireysteen laga laayay in gaadiid badan laga qabsaday lagana gubay shacabka Soomaaliyeedna waxa la tusay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay yihiin ciidan soo barbaaray shaqeyn karana insha Allah